sideen ogsoonnahay madaxdu kama duwana dadka caadiga ah oo way qaldamaan, laakiin waxaa kala duwan saamaynta qaladka qofka caadiga ah iyo kan madaxda. Halkaani waxaan kugu soo gudbin doonaa 10 qalad oo ka dhacay madaxda caalamka, kuwa hore iyo kuwa hadda madax ah. Qaladaadkani laba ka mid ah isbuucyadayna soo dhaafnay ayay dhaceen. Qaladaadkani ayaa isugu jira kuwa diblomaasiyadda ka baxsan iyo kuwa shakhsiyan uga dhacay madaxda. Kusoo dhawaada muuqaalka. Haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir. amiirka waddanka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa ku hungoobi doona si uu doonayo inuu salaamo amiirka cusub ee waddanka Cumaan, xilli wafdiga uu hogaaminaya Maxamed bin Saayid Al Nahyan ay u tageen waddanka ka qaybgalka tacsida amiirkii geeriyooday waddanka Cumaan, Suldaan Qaamus bin Saciid. Amiirka waddanka Cumaan, Haytham bin Taariq, ayaa u muuqday inuu diidayo salaanta Maxamed bin Saayid Al Nahyan. madaxweyne iminka talada haya ee Turkiga ayaa waxa uu ka dhacay faras xilli uu booqday xirada lagu xanaaneeyo farasyada, waxaanu doonayay inuu koro faras, waxayna arrintaa dhacday xilligii uu ra'iisul wasaare madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka George Bush ayaa garbaha ka riixaya hogaamiyaha waddanka Jarmalka Angela Merkel xilli ay fadhiday. Arrintan ayaana ah arrin diblomaasiyadda ka baxsan. madaxweynaha waddanka Uganda ayaa dhulka ku dhacay kadib markii uu laaday kubad xilli uu doonayay inuu furo tartan ciyaareed, waxaana ku qoslay xitaa ciidankii isaga la socday. madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa albaabka gaariga ugu dhacaya si xooli ah xilli uu doonayay inuu gaariga ka soo dego, balse isla markii waxaa ka qabtay mid ka mid ah ilaaladiisa. Tan oo kale sida looga hortago waxaad aragtaa marka madaxdu ay ka soo degayaan gawaarida, albaabka ma sii daayo kan waardiyaha ilaa ninka madaxda uu ka dego gaariga. madaxweynaha waddanka Lubnaan Michel Aoun ayaa dhulka ku dhacaya xilli madaxda wadamada jaamacadda Carabta isku diyaarinayeen sawir kooxeed xilli uu soo dhamaaday kalfadhigii 28aad ee jaamacadda Carabta, waxayna kaamiradu qabanaysaa madaxweynaha waddanka Yemen Cabdirabbi Mansuur Haadi oo ku qoslaya kufitaanka madaxweynaha Lubnaan. Arrintan ayaana noqotay mid la yaab leh. madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka oo la sheekaysanaya dad kale ayaa waxaa soo garab fadhiisanaya ra'iisul wasaaraha waddanka Ciraaq Haydar al-Abadi, isagoo oo dooraya bal inuu soo jeesto Barack Obama, balse arrinta weji gabaxa ku noqota ayaa ah inuu Barack Obama fadhiga ka kacay isagoo sii wata sheekadiisii. Haydar al-Abadi oo tala ku caddaatay ayaa saacadda fiiriyay, dabeetana waa iska dhaqaaqay. madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka Obama oo jeedinaya shir saxaafadeed aqalka cad ee Mareykanka ayaa haraati ku furay albaabka xilli uu doonayay inuu ka baxo albaabka, waxa uuna noqday muuqaal qosol iyo la yaab leh. Maxamed bin Rashid Al Maktoum oo ah maamulaha magaalada Dubai ahna madaxweyne ku-xigeenka waddanka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa dhulka ku dhacay xilli uu ka soo degay diyaarad garoonka diyaaradaha ee magaalada Cumaan ee dalka Urdun. madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa iska indhatiraya salaan ay u soo daagtay haweeneyda afhayeenka u ah aqalka wakiilada ee Mareykanka xilli uu Trump ka badbaaday mooshin la doonayay in xilka lagaga xayuubiyo. haweeneyda ayaa gacanta u soo taagaysa, balse Trump oo ay ka muuqato kibir oosan ka taagaya ayaa ka sii jeestay kadib khudbadiisa, iyadana ciil iyo cara dartii ayay u jexjexda warqadihii khudbadda ee Trump. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan nagu soo biir inaad like saarto, siina share garaysa muuqaalka. Ma aha amar, waa garasho. Daynaysana inaad ka hesha muuqaalka.